wagaag daawadayaal haddii aynu u gudagalno qaybta labaad ee safxadihii madooba ee warshadihii raadiyamka arrimahaasi oo dhammi waxa ay ka dhignaayeen in hablaha badankoodu ay ka shaqeeyaan warshadani saacado badan mushaharkooda oo badnaa awgeed hablaha ka shaqeeya warshadan samaysa saacadaha waxa loogu yeedhi jiray gabdhihii raadiyamka maxaa yeelay curyahani waxa uu ka dhignaa dharkooda oo marka ay shaqada ka baxaan fiidkii dharkoodu waxa uu ahaa mid wada dhalaalaya taasi oo ahayd arrin kale oo madadaalo iyo sharaf u ah gabdhaha ka shaqeeya shirkadani curyaha raadiyam si fiican looma aqoonin astaamihiisa inkasta oo si weyn loo isticmaali jiray hablaha marka ay sii wataan hawsha warshada waxa ka soo muuqan jiray calaamado kala duwan sida daal ilkaha oo barara in ay dhacaan oo ay miyir daboolmaan waqtiyada qaarkood raadiyam waa curyo kiimika ah oo astaantiisu tahay RA iyada oo atomika ah nambarkiisuna yahay 88 waana curyaha lixaad ee kooxda labaad marka loo eegayo jadwalka xilliyada waxaana loo yaqaanaa biraha dhulka alkaliinta biraha dhulka alkani waxa uu bixiyaa shucaac halis ku ah nolosha dhimashadii ugu horeysay waxa ay warshadani ka dhacday sanadkii 1922 waqtigaasi oo gabadh 22 jir ahayd oo lagu magacaabi jiray Emilia ay u dhimatay taasi oo aynu hore uga soo sheekaynay qisadeeda inantaasi waxa ku dhacay xanuun aad u daran kaasi oo sanadan hayay sida la sheegay dhakhtarkeeda ayaa ka saaray daanka hoose kadib markii uu ogaaday inuu si iskiis ah isaga soo dhacayo warbixinta xanuunkeeda ayaa lagu sheegay xanuunka xabadda ama waraabowga laakiin xaqiiq ahaan waxa ay la sakaraadaysay maadada raadiyamka waxaana sababtay markii ay dibnaha iyo carabkeeda ay ku midabeeyeen saacadda raadiyamka xaqiiq ahaan habluhu may ogeyn halista maadadan taasi oo ku keentay sumowga iyo dhimashada xaqiiq ahaan habluhu may ogeyn halista maadada taasi oo ku keentay sumowga iyo dhimashada dabargoysay gashaantimihii warshada ka howlgelayay waxa kale oo dhintay ilaa 50 hablood oo dhammaantood ka shaqaynayay warshada iyagoo xanuunka waraabowga in uu dilay lagu diiwaan geliyay laakiin sanadkii 1925 mid ka mid ah shaqaalaha hablaha ee ka shaqaynaysay warshada oo lagu magacaabayay Greek Fed ayaa go'aansatay inay dacwad ka gudbiso warshada ha yeeshee waxa ay ku qaadatay 2 sano inay hesho qareen aqbala kiiskeeda maxaa yeelay qof kasta ma aaminsanayn sheegashada gabadha ee ah inay jirto sabab kale oo ay u dhinteen asxaabteeda hablaha ah oo aanu xanuunka waraabowga ama xabaddu aanay dilin sanadkii 1927 sagalay ayay awood u yeelatay inay dacwad ka gudbiso iyada iyo 4 ka mid ah asxaabteeda kiiskeeda cabashada ahna waxa ay ku sheegtay inay shirkadu ka warqabtay halista jirta iyo hablaha dhimanaya ee lagu sheegay xanuunka waraabowga sababta dhimashadooda shirkadda ayaa iyadu magacowday koox qareena ah oo dhameystiran khabiirkii maxkamadda u igmatay baadhida ayaa mid ka mid ah gabdhaha oo cabanaysa baadhay wuxuuna xaqiijiyay inay caafimaad qabto oo aanay qabin wax cudur ah ama aan laga helin astaamo aan caadi ahayn warbixintaasina wuxuu u gudbiyay maxkamadda laakiin markii dambe ayaa la ogaaday in uu laaluush ka qaatay shirkadda oo u gudbiyay warbixin been abuura sanadihii ku xigay dhakhaatiir fara badan ayaa ka qayb qaatay shirqoolka shirkadda waxaanay beeniyeen xiriirka u dhaxeeyay curyaha raadiyamka iyo geerida gabdhaha
shirkaduna siciidow waqtigaasi waxa ay hoos u dhigtay sumcaddii hablaha iyadoo ku eedaysay in gabdhaha shirkadda ka shaqeeya ay akhlaaqdoodu xun tahay oo ay sinaysteen waa sida ay shirkaddu u dhigtay hadalkee taasi oo iyana keentay in uu ku dhaco xanuunka waraabowgu waqtigaas ay go'aanada soo saartay kooxaha dhakhaatiirta ah waxaa jiray 2 hablood oo keliya oo ka noolaa hablihii hore kuwaasi oo iyana dhintay 2 sano kadib kiiskani oo loo yaqaano kiiskii gabdhaha radium waxa uu raad wanaagsan ku reebay wacyigelin bulsho oo Mareykanka ka bilaabantay waxana uu adkeeyay tallaabooyinkii amni iyo caafimaad ee warshadda taasi oo ahayd mid ay ku baraarugeen waxyeeladeeda amaba waxyeelada ay leedahay bulshooyinka Mareykanku warshada iyo kuwa ganacsanaya ee aan naxariista lahayn kuwaasi oo ku mashquulsan kaliya inay sameeyaan lacag iyaga oo aan dan ka gelaynin nolosha bulshada iyo dadka u shaqeynaya waxana lagu aasaasay xeerka shaqaalaha kaasi oo xaq u siinaya in qofka shaqaalihii uu dacweyn karo loo shaqeeyaha si uu magdhow uga helo wixii dhibaato ah ee shaqada ka soo gaadhay saacadihii ugu dambeeyay ee radiumka waxa la sameeyay sanadkii 1968 iyadoo oo la xusay in midabka dhalaalayay ee loo isticmaalay badeecadahaasi qaar sida saacadaha aanay dhammaanin laakiin maadada radiumka waxaa laga bedelay fosforka iyo mararka qaarkood tritium oo iyaguna maadooyin ku jiray markii hore gabadha lagu magacaabi jiray Mrs. Kana ayaa iyaduna marka ay bilowday shaqada warshadan aan jeclaysanin dhadhanka walaxda la yaab kale ee carabka lagu isticmaalayay waanay diiday in burushka afka ay gashato sidaa darteed waxa lagu qasbay in ay shaqada joojiso Marwa Maya waxa ay ahayd gabadha kaliya ee ka badbaaday hablihii warshada ka shaqeynayay amaba ka shaqo galay waxana ay daadeedu ahayd ama ay gaadhay 107 sano iyadoo dhimatay sanadkii 2014 inkastoo ay ka shaqeynaysay dhowr maalmood oo kaliya shaqadani haweenaydan oo ka cabanaysay cudurka kansarka iyo dhanjafka oo raad iyo saameyn ay ku reebtay curyaha radiumka ayaa waxa ay tiri waxaan u mahad celinayaa mulkiilayaashii shirkadda maxaa yeelay waxa ay igu qasbeen in aan shaqada joojiyo ama aan istiqaalad ka keeno sidaas darteed waxa ay badbaadiyeen noloshayda iyagoo aan iyagu dareemaynin wanaagga ay sameeyeen waxa kale oo dhacay in saynisyahanada Mrs. Maria Quara oo iskaashi la sameynaysay ninkeeda soo saarista curyahan inay iyada lafteedu u dhimatay saameynta curyaha radiumka ahi uu ku sameeyay intaas ayaanu guud ahaan ku soo gabagabaynaynaa documentariga ku saabsan warshadii radium gaaska haddaba akhriste sidee u aragtaa kiiska iyo qaabka garsoorku la macaamilay